guurku waa u muhiim qof waliba oo muslima waa diintiisa barkeeda waxa ku jira wanaagiisa waxa ku jira tarankiisa waxa ku jira caafimaadkiisa waxa ku jira deganaantiisa waxa ku jira wax waliba maadaama diintiisii dhan xaafkeeda lagu tilmaamay muhiimadaas uu leeyahay aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay qof waliba inuu ku baraarugo balse su'aasha meesha taagana waxay tahay mudnaanta iyada ahi ma la siiyaa jawaabtu waxa weeye in badan oo waayadan waalidiinta iyo gabdhaha iyo wiilasha qarnigan cusub ee lagu jiro hadda waxa muuqata muhiimadaasi inaan inta badan la siin waxaana arkaysaa in muhiimadu loo leexiyo dhan kale oo saameyn weyn oo ay nagu yeesheen dhammaanteen baraha bulshada nolosha meelaha kale ka jirta horumarada la sameeyay inagoo u aragna mar waliba oo noloshu ay sii casriyooda in wax waliba in la sii adkeeyo inay qasab tahay taana sax ma aha haddii wax la adkeynayana haddii wax la isku dhibayo haddii wax laga dhigayo wax aan la heli karin guurku marna kuma jiro sababtoo ah badbaadadii ummadda oo dhan ayaa ku jira dhowrsanaantii dadka ayaa ku jira tarankii ummadda ku jira diintii barkeeda oo aad adkaysay ayay la mid tahay haddaad waalid tahay haddaad gabar tahay diintii barkeed oo aad adkaysood iska hor istaagtood diiday ayaad ka mid tahay haddaad isu diidid tusaale ahaan wiil walaalkaa ah because wax ma haysto because gacantiisa gaaban because kama soo jeedo muxuu ahaa reer hebel iyo wax la midka ah arrintaas adkaynta ah already waxaa ka dhashay musiibo aad iyo aad u weyn oo qof waliba uu ka dareemayo hadba magaalada uu joogo iyo dalka